يا dhacdo hore dhacday oo ku jaan go'an sida daraadeed ba maahda gabigeeduba waa calaamad taariikhda la calaamadiyay waa dhacdo kamida dhacdooyinkii taariikhda oo la calaamadiyay gabayga la mid ah gabayada inta badan taariikhda waa lagu calaamadsadaa oo dhacdooyin dhacay oo taariikhiya ayaa gabay yar oo koobani uu tilmaama qisaad u tiro badan leh walidaalka waxaynu u baahanahay sideedaba qisad dhamaanteed inaynu aad ugu noqono تاريخ قال تاريخ مسلم مد والبا وهي إلهي القرآن كمد قال يا مد مسلم وكذا ورمى مواضع العبر كان نحتاجنا أما يسكتاجنا درس كان ما أنت لقون دينا وحلا يدينا كورمه تاريخ أندلس تاريخ ده سري ساعد يبرنا أنا وشجعنا قرن مايا أندلس دولة الأموية لبي سجاشن كي هجرية ده أيا لا فرطي طارق بن زياد يا موسى بن نصير قايد كان لورنشري طارق بن زياد ودري لبي سغاشن كيبay bilaabeen furashadii Andalus ee ugu horeysay Andalus waa wadankii yara Iberia looranjiray ama jasiiradan maanta caanka ee Spain iyo Portugal ay u badan yihiin Granada oo aakhir mamlaka islaamiya Granada magaaladan hadda la yiraahdaa mamlakadii ugu dambeysay islaamiga ahayd ay ka baxday 897kii muharram kowdeedii baa laga soo saaray aakhir الملوك Abu Abdullah ninkay hooyadii gabayga u tirinaysaa ilahayd boqortooyaad sida ragga ilaalin weyday sida dumarka ugu ooy gabay abay u tirinaysay ibki mithla an-nisaa gabay ku jiro oo ay tilmaamayso haddaad sida ragga u ilaashan kari weyday sida dumarka ugu ooy waxa la yidhi markii ugu dambeysay uu ka dhaqaaqayay mucaahada ayuu kaga baxay mucaahadada markii la kala saxaday doonyihii fuulu is agtaago dib u eegay qasriyadiisii iyo wixiisii markaas ilma ka soo daaday baa la yiri hooyadii baa markaa weedhatan ku tiri waa taariikh markaa 805 sanadood ka kooban 8 daqiiqo leeysiya hadaan u qaybiyo 10kii sanadood ba hal daqiiqaan u hayaa 10kii sano ee taariikhda kamidaba hal daqiiqo ay ku soo beegmaya marka way adagtay taariikhda Andalus inaan kaga warano 8 daqiiqo iyo wax la mid ah umuman Andalus 290kii laga bilaabo ilaa 138kii hijriyada waxay hoos imanaysay al-khilaafa al-umawiyya markii khilaafa al-umawiyya ay dhacday ee dawladda al-Abbaasiyya ay meesha qabsatay wiil dhalinyaro umawiyiintii kamid ah ayaa dilkii ka baxsaday walaaladii la dilay isagii baxsaday wuxuu socdaba wuxuu gaadhay wadankaasi Abdurrahman al-Dakhil oo saqar Quraysh ninka loo bixiyay dawladdaasi isaga dib u asaastay isagoo qariiba buu wadanka tagay waxba haysanin laakiin dawlad buu muddo yar kaga dhistay dabeetana dawlad aad u ballaaran ayuu dhisay dhowr iyo 30 sano baan filayaa 34 sanadood ayuu xukumayay waqtigiisii intii badnayd thawraad bay kaga dhacday 25 thawradood ayaa ku kacday 34kii sanadood ee uu maamulayay akhiiran 170kii meelaha markay mareysay ayuu wadanku istiqraarkiisii sugmay مدينة عانكي مدينة الزهراء الله يراد قرطبة كتالة تاريخ ده مدن كي وقع عن سنة دنيا هانشرة وقرح ده بدنا أي وقت قاعد سي مسجد قرطبة ومساجد كوين أبو بلابي إلى أي مركز دم مسجد قرطبة سيدي اللي هو وينين يجي كن إيا الله بقول أطير بمركز دم بلها مساجد كتير كيسو بلا ريسك كيسو كن إيا الله بقول إسقى كن إيا الله بدي سي بقول بلا كنيسة ده يهدنا كديسين قرطبة ولا مساجد يواديسين لكن هذا وكنيسة تاريخ ذا سدير ودن كاسيلي وتاريخ ما ستر بدن له أما ميل مدمدو وآد فالحنا تر بدن له ميل آد قرح بدن نله وتاريخ مركزي رنتي دراسة ده أيتاي تاريخها وقفي عن الدراسية وهو تاريخ بدل كده بدني هاي أسبابته كانت بدل كده مركي بعد إيش كله فنشوا عن واحد بدن وفير سي بدن كاجا بحنين مركان صاق كوبه
haddii aan taariikhdan maraaxil u qaybinno marxaladda hore waa marxaladdaasi dhismaha koowaad ee ninkaasi dhisay kadib inaanu dhalay baa ka uga dambeeyey kadib inan kale uu awowyaha uga dambeeyey qolada hore waa iska fiicnay laakiin waxaan jeclahay meesha u baahan inaynu si fiican u daraasayno inaan isu soo dultaago taariikhdani markay muddo socotay ayaa ninkii ugu dambeeyey wakhtiga aan rabo waxaan rabaa cahdigii muluku tawaa'if ay talinaysay cahdigii ugu fitna badnaa inaynu tagno ee taariikhdaasi ka mid ah waa cahdiga loo yaqaano muluku tawaa'if ama boqortooyooyinkii taa'ifaadka yaryar ee kala nooca ah muluku tawaa'if waxa ka horreeyey laba boqor oo aad u waaweyn waa cabdiraxmaan الnaasir ama cabdiraxmaan الثaalith taariikhda bani umaya saddex nin oo cabdiraxmaan la yidhaahdaa soo maray daakhilkii iyo cabdiraxmaan kii labaad ama athani iyo cabdiraxmaan الثaalith nin lagu tilmaamo iyo saddex hishaamkii koowaad kii labaad kii saddexaad cabdiraxmaan الثaalith oo cabdiraxmaan الnaasir ninka loo yaqaano wuxuu xukumayay waddankaasi 50 sannadood 22 jir isagoo abuu qabsaday waana mararkay ugu qurux badnayd buu waddankaasi gaadhsiiyey nin karti leh oo alla ka cabsi leh oo dawlad xooggan dhistay oo thawraadkii iyo wixii ka soo horjeedoo dhan ka takhallusay oo ballaadhiyey dawladdii islaamka ee meesha dawlad aad u qurux badan leh buu ka tegey markaas cabdiraxmaan الnaasir dawladdii quruxda badnayd ee uu ka tegey inankiisii baa dhaxlay la odhan jiray alxakam ibnu cabdiraxmaan الnaasir الحكم وحنين عالمة أقوم بدن دين جعل الله كعبس بدن دولة دجنة هلاي سندن كعلم جو سقفها فيبا ومكتبته عالم كوجوا وينان كي سمايستي أفر بقولة كونه مجلدات بمكتبة دي سك كابناي سجونين عالمة وفقيه أبوها مدو هايستي لكن غلطتي وجوا ينيدبو قليبا يرهدان dawladdii aadka u ballaadhnayd ee meesha ka talinaysay markuu ka geeriyoonayay inama waaweyn ma lahayn inan yaroo uu dhalay ayuu ka dhigay inuu leeyahay wilaayada isaga dabadi culamada ugu da'weynaysiisa 12 jir bay ka dhigaan taariikhda kuwa ugu yareeyana 7 jir adigu nin 7 jir meelahaasiya da'diisu هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر نكي اللي ورنشري هشام الثالث نكوي قانين أما المؤيد بالله لغة المامو هشام كامركي ماشى اللو ديبي هشام المير بوها ما دام المير اسكاها وصيبه سميا معد إلى لسه سجى سلانه هويا يلا بني نوكله تاريخ تاسي مرة بالتفصيل إنه نقول